Soomaali nimadu waa maxay? Waa af. Haddaad afka weydo waad Soomaalinimo waayeysaa. Haddaad afka weydo waad Soomaalinimo waaya. Afku waa waxa ugu weyn. Haddaad Muslim weydana, haddaad af weydo Soomaaliyaad ka baxday. Soomaalinimada kaa luntay. haddaad diin weydana dee muslimnimadoo dhan baad ka baxday. haddaad diinta hayso laakiin afka aanad haynin waxaad la mid tahay dee bangaaladhishka muslimka iyo hindida iyo bakistaanta iyo turkida iyo dadka kale ee muslimkaa baad la mid tahay. qof muslima oo ka mida jamaacada muslimkaa tahay laakiin ma tihid identitygaan rabay ee soomaaliga ahaa. waxaan rabnaa markaa ma suurtagaltay halkan inaad waxna ku baratid waxna la qaybsatid dadka muslim soomaaliyana ahaatid. maalan 19 waddan ee dunida ugu horeeya waddan waliba afkiisu wax ku dhigaa. waddan waliba afkiisu wax ku dhigaa. waxay idhaahdaan 500 ee jaamacadood ee dunida ugu horeeya mid walba afka waddankiisaa lagu dhigaa. Sweden way awoodi kari lahayd inay tidhaahdo buugagtoo dhan ingiriisaan ka dhiganno iskuulkana af ingiriisiga ha lagu dhigo. waayo iyagoo 8 milyan ama 9 milyan ay Swedish u daba wadaan. way Norwegiyo 5 milyan ay af Norweji u daba wadaan. way Denmarkiisoo 5 milyan u daba wadaan. dunida maxaa cid waliba afkan 50 milyan iyo 40 milyan 60 milyan maxaa ku dhajiyay afkooda? waa culuum daat, waa culuum alhuwiya, waa dadnimadooda wixii muujinayay. cidna ma rabto inay dadnimadeeda weydo.